نحن بأنتن وأنتم، نحن بأنتن وأنتم، كلنا بكبير وصغير، مجهودات تتوالى، مشوار سهل لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجري نين إنجنير نينكاس إنجنيركا waxa uu ka shaqeyn jiray shirkad maalin maalmaha kamid ah ayuu wuxuu go'aansaday inuu shaqadaas ka fasaxo oo shirkadda shaqadeeda uu ka tago. waxa uu yimi ninkii ahaa maamulaha shirkadda arrinkii ayuu bandhigay, wuxuu yiri waxaan rabaa inaan shaqada ka tagaan rabaa, waana aad mahadsantihiin muddadii dheerayd ee aan soo wada shaqeynaynay. kadib ninkii ahaa maamulihii wuxuu ku yiri waa si fiican dhimma leh insha Allah ta'ala waa ku fasaxaynaa, laakiin inta aan ku fasaxin waxaan ka codsanaynaa in aad noo dhistid hal guri oo aad furihiisa aad nagu soo wareejisid, markaas aan ku siino khidmadaadii adiguna aad sidaas ku ahaatid fasax. kadib ninkii injineerka ahaa waxa uu bilaabay oo uu guda galay in uu dhiso gurigii, laakiin waxa uu gurigii ku dhisay qaab degdeg ah oo uusan ka fiirsan. waxa uu ku dhisay waqti aad u yar. kadib markii uu gurigii dhameeyay ayuu wuxuu soo laabtay ninkii maamulaha ka ahaa shirkadda. waxa uu ku yiri gurigii waa dhameeyay, furihiisina waa kaas, waana gabagabay. laakiin ninkii mudiirka ahaa oo maamulaha shirkadda ahaa waxa uu ku yiri waa maasan tahay maadaama guriga dhameysay, laakiin gurigan aan ku diray waxaan ugu talagalnay inaan adiga kugu macsalaamayno maadaama aad ahayd injineer si fiican oo soo shaqeeyay. ninkii injineerka ahaa aad ayuu naxay waana uu yaabay maadaama waxa uu yahay in gurigii dhisay uu yahay guri uu si fiican u dhisin una ku dhisay waqti aad u yar. qisada intaan ay ku egtahay waxa laga faa'iideeyo waxa weeye khayr kasta oo aad samaysid waxa helaysaa bedelkiisa helaysaa walow waqti dheer kadib. sidoo kale shar kasta iyo xubaan kasta oo aad samaysid oo aad maleegtid dhibteeda iyo sharkeeda iyo caqabadeeda waxa helaysaa waqti kadib. marka si fiican insha Allah ta'ala waxa loo doorto.